madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo qoraal kooban oo kaga hadlayo arrimaha qurba joogta soo dhigay boggiisa uu ku leeyahay baraha bulshada ee Facebook ayaa waxa uu dhignaa sida qiyaasta caadiga ah waa in dadka qurbaha tagay ee badaha ka tallaabay ay u korodhay ilbaxnimo iyo aqoon kor uga kobcisay garaadka dadkii aan fursadda waxbarasho iyo mid magaalo joognimo toona helin ee ay tulooyinka kaga tageen wayna jirtaa in aqlabiyadda qurba joogtu yihiin kuwa sifooyinka leh oo dadkoodii ay dalka kaga tageen wax ku soo kordhiya waxaase qiyaasta garan marsan ee qurba joogta ka mid ah oo weli qabqableh iyo afmishaar tula joog yihiin maalin walbana u alifo ajanda waxoogaa dhaqaale ah lagaga daadsado iyada oo loo garaacayo durbaan ah reer hebel baa ina soo maagaya dhaqaale soo dira aan isaga celinno xidhiidhka aan caafimaadka qabin ee qabqable tuula joog ah iyo qurba joog qalbiga tuuladii uu dhashay aan weli ka tegin ayaa inta badan sabab u ah isku dhacyada bulshada si kale haddii loo dhigo isku dhac bulsho ma aha ee waa ganacsi sharci darra ah oo aan ka duwanayn tahriibka iyo faldambiyeedyada kale ee la xidhiidha in dheef laga raadiyo dhibaataynta bini'aadamka fahankaas ayaa aas-aas u noqon doona qorshayaasha xukuumadda ee la xidhiidha ka hortagga iyo xakamaynta isku dhacyada bulshada dhexdeeda ah